la iskuma diidana doorasho qof iyo cod ah waa qayb ka mid ah xalka arrimaha siyaasadda ee Soomaaliyada cusub. Doorashada dadweyne waa mid bulshada fursad u siisa inay doortaan hoggaankii matali lahaa, taas oo dhabaha u xaaraysa in laga gudbo doorashooyinka dadban iyo nidaamka qabaliga ee Soomaalida caqabada ku noqday. Hase ahaatee gudaha Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran, nidaamka diiwaangelinta oo noqday mid qasab ah ayay walaac ballaaran ka muujinayaan shacabka. labadii toddobaad ee ugu dambeysay dadka Muqdisho waxaa hareeyay walwal aad u fara badan kaas oo la xiriira isdiiwaangelinta qasabka ah, waxaana subax walba wadooyinka caasimada soo buux dhaafiya askar boolis ah oo hubaysan, kuwaas oo shacabka si xooga u geeya xarumaha diiwaangelinta xilli muwaadinku uu u soo muraaday howshiisa maalinlaha oo aan u diyaarsanayn isdiiwaangelinta. mararka qaarna waxaa dhacda in qof iska diiwaangeliyay degmada uu degan yahay haddana ay askarta ku xujeeyaan inuu mar kale iska diiwaangeliyo degmada uu waqtigaas joogo, taas oo aan fariir badan abuurtay maadaama muwaadinku aanu isdiiwaangelin karin wax ka badan hal jeer. Hortimin media oo u kurgashay sababta arrintan keentay, waxaana xoga aan helnay ku ogaanay in askarta wadooyinka la taagay uu midkiiba helayo dhaqaalaha tirada dadka uu maalintaas wadada ka soo qabto. Tusaale ahaan, askarigay keena wax ka badan 50 qof waxaa lagu abaalmarinayaa lacag gaaraysa $30. lacagahan ay askartu helayaan ayaa sababay in askariga uu isticmaalo awood ciidan, waxaana wadooyinka magaalada ku arkaysaa askari baacsanaya qof rayid ah ama xilliyada qaar u adeegsanaya rasaas nool, taas oo keentay inay bataan dadka dhibanayaasha u ah isdiiwaangelintan qasabka ah. dadka ka cagajiiday isdiiwaangelintan oo badankooda ka daahsan shaqooyinkooda iyo qaar kale oo garab rarata ah oo nolol maalmeedka la daala dhacaya ayaa la kulma xarig, taas oo xadgudub weyn ah maadaama aan muwaadinka la xiri karin amar maxkamadeed la'aantii sida uu sheegayo qodobka 35 ee dastuurka. waxaana haddii ay maxkamad amarto waajib ah in muddo 48 saacadood ah maxkamad lagu horgeeyo. sidaa awgeed ma jirto amar maxkamad oo lagu soo xiray ama eedayn sharci ah oo loo soo jeediyay muwaadiniintan. doc kastaba ku tagrifalka awoodda dowladnimo iyo cabsigelinta dadweynaha waa mid jabinaysa ama liddi ku ah xurriyadda muwaadinka, waxaana sida ku cad qodobka 8 ee xeerka doorashooyinka, shaqaalaha guddiga waxaa waajib ku ah ilaalinta xuquuqda siyaasadeed ee muwaadiniinta. balse falalkii ugu dambeeyay ee dhacay waa kuwa dhaawacaya mubaadi'daas aasaasiga ee doorashada. caqabadahan ayaa noqonaya kuwo mudan in lagula xisaabtamo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo hay-adaha u xilsaaran hagidda doorashada si ay il gaara uga eegaan falalkan loogana baaqsado. balse gudoomiyaha oo dhowr jeer toddobaadkan warbaahinta la hadlay wuxuu si joogto ah u sheegay in isdiiwaangelinta codbixiyayaasha aysan ahayn mid qasab ah, haddana xaqiiqda rasmiga ayaa ah in muwaadiniin lagu xiray arrintan, kuwo kalena lagu qasbay inay isdiiwaangeliyaan iyagoo diidmo muujinaya. waxaase intaa oo dhan ka sii daran in dhacdooyin la huba ay xaqiijinayaan in qof muwaadin ah lagu dilay sababo la xiriira diidmada diiwaangelinta. tani ayaa si cad uga hor imaanaysa qodobka 9 ee xeerka doorashada, kaas oo dhigaya in isdiiwaangelintu ay tahay arrin muwaadinka uu xor u yahay go'aankeeda. si kastaba, tacdiyadan ayaa hoos u dhigaya kalsoonida shacabka iyo tan beesha caalamka oo isha ku haysa arrimaha Soomaaliya. waxaase waqtigan lagama maarmaan ah helidda hanaan doorasho oo hufan, cadaaladna uu ku dheehan yahay, iyadoo la ilaalinayo xuquuqda muwaadinka, sumcadiisa iyo kalsoonida nidaamka doorashadan dadweyne oo ah mid uu hirgalkeedu mugdi badan dul hoganayo.